wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo ay weheliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda Sayid Cumar Guuleed oo hortagay baarlamaanka maamulkaasi ayaa la weydiiyay su'aalo ku saabsan badqabka caafimaad iyo daawooyinka dalka la soo geliyo. xildhibano dhowr ah ayaa wasiirka caafimaadka ka dalbaday in la joojiyo isticmaalka kaniiniga loo isticmaalo xoojinta galmada ee Figuera iyagoo xildhibaanada daliishaday halis badan oo kaniinigaasi uu keenay muwaadiniin badan qaarkoodna ay u dhinteen markii ay isticmaaleen. xildhibaanada doodan soo jeediya ayaa sheegay in daawooyinka qaar ay leeyihiin halis caafimaad oo ka badan faa'iidooyinka ay leeyihiin. wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay inay baaris ku sameynayaan iyo hubin daawooyinka loo isticmaalo galmada iyo kuwa kale isagoo sheegay haddii ay cadaato arrintan inay qaadi doonaan tallaabada ku habboon. kaniiniga Figuera oo dhowr siyaabo loo isticmaalo wuxuu ka qayb qaataa xoojinta qulqulo iyo wareegga dhiigga qofka dhiigga soo xubinta taranka u baahan tahay si ay awood u yeelato. caadiyan wax dhibaato ah kuma sugnaa isticmaalka kaniinigan marka dhakhtar uu ku soo qoro loona qaato sida saxda ah. hase yeeshee dalal badan waxaa haysta dhibaato ah in dadku qaataan ayagoo aan dhakhtar siin taasina oo keentay inay adeegsadaan xaddi ka badan kii ay u baahnaayeen. sidoo kale dalal badan oo caalamka ah oo Soomaaliya ay ku jirto waxaa la geeyaa kaniiniga Figuera oo been abuur ah oo aanan ahayn kan saxda ah taasi oo halis dhalisa.